السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحادك أمال ديدك سوماليdu waa bulsho ku caan baxday islaamnimada iyo in aysan rumaysanayn ama aanay ka jirin diinaan islaamka ahayn. waxay ahayd bulsho ku adada ku faanida iyo sheegashada lahaanshaha islaamka diin ahaan iyo in ay ka mid tahay bulshooyinka yaryar ee dunida ka jira laguna tiriyo inay boqolkiiba muslimiin yihiin. inkastoo ay jireen tiro yar oo Soomaali ah oo lagu sheegay inay gaaloobeen oo aan diinta islaamka ahayn qaateen ama diinta islaamka ka tageen, haddana ma gaarsiisnayn tiro sugan oo lagu tilmaami karo boqolkiiba hal. waxa ayna ahaayeen dadkaasi dhowr qaybood: dad ay duruufo nololeed u geysteen iyagoo ay yaryar ay ku soo barbaareen gacanta hay'ado Kirishtaan ah oo dalka ku lahaa xarumo adeegyo caafimaad iyo waxbarasho lagu hoos qarin jiray faafinta diinta Kirishtaanka. dad muddo hore dalka ka dhoofay ama u shaqeynaya gumaystii sidaasna ku qaatay diinta Kirishtaanka. dad u badan saraakiisha ciidanka ee xilligii dawladihii militariga iyo tiireydka ee ka horreysay tababar loogu diray dalalka Shuuciyada ee midowga Soofiyeedka, kuwaasi oo qaatay ama ay horkacayeen, kuwaas oo soo laabtay iyagoo la diidah ama meel iska dhigay ku dhaqanka diinta, kuwaasi oo inta badan raacay ama sanado badin kadib ku soo laabtay islaamka oo wixii ka dhacayna ay u arkay gabadha dhalinyarnimo. sidoo kale intii burburkii dalka ka dhacay oo in badan oo Soomaali ah u hayaameen dalalka shisheeye, waxa jiray tiro yar oo Soomaali ah oo sheeganaysay in ay diinta Kirishtaanka qaateen, laakiin ma ahayn tiro miisaan leh. ilxaadka cusub dhanka kale waxa waayada dambe baraha bulshada ku soo badanaya dhalinyaro Soomaali ah oo ku doodaya in ay isaga baxeen diinta islaamka ayagoo weliba diidan jiritaanka ilaahay iyo saxnimada diinta islaamka, kuna qanceen in uusan jirin ilaahay rumaysan yihiin. dhalinyaradan oo ku saboobay rag carab iyo cadaan isugu jira, qaar nool iyo qaar mar hore geeriyooday, intuba dhammaantoodna ku caan baxay in ay yihiin mulxidiin ama la diid. dhalinyarada waa kuwa ka saameyn badan dhammaan qaybahan sare ku soo sheegnay. waa dhalinyaro dal iyo dibadba jooga, waxay aqoon heerarkeeda kala duwan u leeyihiin diinta islaamka iyo afka carabiga. waa koox abaabulan halkana ugu jirta faafinta fikirka la diidnimada. waxay si baasan u adeegsadaan baraha bulshada, waxay weerar qayaxan ku qaadaan wax walba oo muqadas u ah islaamnimada. waxay toos u weeraraan ilaahay, nabiga iyo quraanka. haddaba waa maxay ILXAAD? ilxaad ama ILXAADis waa madhab ku dhisan oo ku salaysan inkirada jiritaanka ilaahay iyo abuurkiisa. asalkeeduna waa kalmada atheos oo luqadda Greega ku ah qof aan ilaahay aaminsanayn. waxaa jira ilaa dhowr magac oo isku micno dhow u ah in ay u baahan yihiin in mid waliba gooni loo qeexo. waana sidan: mulxid waa qof aanan rumaysanayn jiritaanka Alle iyo diin laawe waa magaca loo yaqaan kuwa aan diidanayn jiritaanka Alle laakiin aan aaminsanayn wax diindiid. waa marka uu mulxidku cadaysto colaad ka dhan ah Alle, diinta iyo dadka qadiimaha ku dhaqma rububiyin. dad aaminsan inuu jiro Rabbi abuuray koonkan laakiin diidan jiritaanka cid uu soo diray iyo diin uu soo dhiibay. hubaantilaan waa qolo aaminsan in jiritaanka ilaahay iyo dhimashada kadib wax ku saabsan aanan loo haynin wax cadayn ah jiritaankooda, sidoo kalena aanan lahayn wax lagu diido ama lagu inkiro. marka inta ay wax kala cadaynayaan mana rumaynano mana diidayno ayay yidhaahdeen. goorma ayaa uu soo ifbaxay ilxaadku? ma jirto taariikh xadidan oo la dhihi karo waa ambaqaadka fikirka ilxaadka ee Alle iyo diintaba la colka ahayd tan iyo intii koonka la abuuray. waa ay jiri jirtay dooda xaqa iyo baadilka. alla rumaynaya ILXAAD qoraaga la yiraahdo Ciwaad waxa uu leeyahay ilxaadku kuma bilaamin marka hore diidmada jiritaanka ilaahay, ee waxa uu ka bilowday diidmada fikirka hoggaanka kaniisada iyo habdhaqankooda. maadaama ay hoggaanka kaniisada ay lahaayeen gacan sarreynta hoggaanka diimeed, kan siyaasadeed iyo kan dhaqaalaba, ma ahayn mid fudud in mulxidiintu cadaystaan fikirkooda. dadka lagu tuhmay inay yihiin mulxidiin waxay ahaayeen kuwa aan sumcad ku dhex lahayn bulshada, taasoo ku qasbi jirtay in ay qoraaladooda ku soo gudbiyaan magacyo aanan la aqoon. Professor Julian Bigano waxa uu leeyahay kacaankii Faransiiska 1789 waxa uu ahaa marxaladii ugu muhiimsaneed ee taaha laga rogay doodaha la xiriirta Alle iyo diinta. kacaanka Faransiiska waxa saldhig u ahaa in la isku dulqaado heeryada boqortooyada iyo kaniisada oo isu bahaysatay musuq, maamul xumo iyo caburinta dadweynaha, taasoo kacaankii halka uu dhagyada ugu caansanaa ay ka mid ahaayeen ku marjiye boqorka uu dambeeyo
xidmaha wadaadka ugu dambeeya yacni hal mar ha laga wada takhaluso boqortooyada kaniisadba taasi oo dooda asalka ilxaadku u yeelaysa ujeedooyin siyaasadeed iyo kuwa nololeed ee bulshooyinka uu ka soo bilowday la soco qaybta labaad ee duruufaha shakhsiyada bulsho ee kaalinta uu ku lahaa khanaqaadka ilxaadka ee wadamada galbeedka. Wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.